السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan naga daawanaysaan waa Queen Mustalifa waxaa maanta marti ah walaalkay qaaliga koronto aad u taqaanaan xagga YouTube-ka xiisaha wararka ku soo dhaw channel-kayga barnaamijka maanta ku wado aad baad umahadsan tahay ugu horeyn bulshada Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta Queen Mustalifa channel-ka ku xiran hadda waa ogtihiin waxa ugu horeeya ee la isaga baahan yahay bahasha gaduuda subscribe ay ku qoran tahay samaha meesha like ay ku qoran tahay labada suul horta maxay saan u soo dhaheen kan oo kor jira rabnaa kan hoos marno dislike naga ilaala barnaamij kan kor jiro shartan waa isaga baahan yahay Facebook muxuu ay sheeg family-kaaga friends-kaaga la wadaag walba la wadaag wax weyn ma ahan intaas oo dhan hal daqiiqo kugu qaadanaysa maanta channel-kana marti ku ahay walaasheed qaaliga aniga halkan ayaan jecelnahay in asxaabteeda aan waqti kula qaadano aan halkan idinku sheekayno Ilaahay karaal noqdo oo nafteena nagu jirto maanta barnaamij oo dhaxtaal ii maray jirto ilaahay baartiri soo sameeyay waa halkii hadana soo qabtay hore loo gabdho soo qabtay hal gabar iyo Ikran Ozil iyo saddex gabdhood soo qabtay wiil soo qabay tiri wiil soo qabtay hadana korontaana la joogo marka waxa waday barnaamijkan waxa ku xusan ciwaanka wada jeedaan dadka wada jeedaan dhalinta maanta dhibaatada haysato marka dhalinta maanta dhibaatada haysato waxa rabay su'aalina ka weydiiyo oo aad iga jawaabto sidii ra'yigaaga iyo sida aad markaas u aragto waxaan inta fadhiyo su'aalaha ina jawaab ka bixiyo insha Allah su'aalaha iyo jawaabaha isla doona Ilaahay karaal noqdo inaad ku qanacdaan rajeenaya dadkana daawanaya hadda waa u jeedo koronto waa u jeedaa la jirba daawo la YouTube ka qofla keen koronto ana inii fadhiya hada qosol jirin waxaas ku nuurayaan qosol waa bristolkiisa waa bristolkiisa ilaahay boorna madarisi inta noo shaab iska qosolku xaala waa hubka kaliya oo cadawgaaga kan ku jecel isaga difaaci karto anyway halka badan aan ma buuxsho waxtarkina ay tisnaa rajeynaa insha Allah koronto waxa ku weydiinaa waxay tahay maanta dhibaatooyinka ugu badan ee haysta marka aan dhalinyarada ama dadka social media ku jira ama dadka ku jirin dhibaatada haysta waxay tahay waxa arkaysaa laba qof oo xiriir leh ama laba qof oo xasaabo shukaansi ka dhaxeeyo labada qof oo isku ogeed ama meelaha soo dhiga jireen bari ka bacda waxa arkay labada qof oo aan isqabin kuwan sama qabaya waa xiriirkooda burbur marka xiriirka burburo maraga sabab ama dumarka sabab aad baad ma santaa Mustalifo runtii marka la yiraahdo xiriir horta xiriir sidiisaba rag iyo haweenba horta Allah wada uuntay adduunkan aan wada joogno waxaynu isugu jiraan rag dabeecad leh rag aan dabeecad lahayn haween dabeecad leh kuwa aan dabeecad lahayn inta badan marka isku aadka nolosha marka la fiiriyo circle-ka mid dabeecad leh iyo gabar dabeecad leh wiil dabeecad leh inta badan xiriir moodo wadaagaan haday wadaagaan inta badan isma wada helaan nolosha waxa wadaaga waxa waaye labada qofood qofna waa qofkii loo sabrayay qofna waa qofkii muxuu sabrayay marka inta badan marka waxa moodaa xiriirada way ugu dambeeyay markii hore waa la fahamsanaa labada qofood qofka lagu socdo iyo qofka muxuu ay sheeg lagu soconin marka hadda waayii dambe laakiin dulqaadkii aad horta aad u yaraaday dhibaatada jirto waxa kaloo iyana jirta kalsoonida waa shay qaali ah waa waxa labada qofood xiriirkooda kobciyo mar walbana loo baahan yahay in la dhiso kalsoonida oo yaraatana ayada naftirkeeda saameynteeda ay ku leedahay waxa kaloo iyana saameynteeda ku leh muxuu ay sheeg markii hore inkastoo la yiraahdo gabadha kumbeekoodisa mid bay kala baxdaa haddana waxa moodaa sanadii ugu dambeeyay in fikir qaldan ay gabdhihii aaminsan yihiin ragina inay fikir qaldan ay aaminsan yihiin waxa aad u yar wiil iyo gabar haasaabo u ka dhaxeeyo in labadooda kaliya isku koobnaadaan oo wiilkan gabadhan aamintay inuu ku koobnaado gabadhan wiilkan aaminay inay ku koobnaato aaday horta u yartahay labadooda mid walba cid ay ka boobayaan ma garan karee waxay isku dayayaan inay dadbadsadaan marka waxa dhacayso wiilka markii gabadhan uu barto maanta magaca baay Mustalifo wuxuu u baxsanayaa wax kale ku qoranaya wax kale markuu ku qorto gabdho kale wada waxa laga yaabaa Mustalifo inay tiri abu ani hooyaday aabay way nooliyeen alxamdulillah gabar kale waxay tiri hooyaday dhimatay gabar kale waxay leedahay ani aabay asaasa marka wixii oo dhan isku qaldaya mid dhahday hooyaday aabay way geeriyoodeen oo wuxuu iska leeyahay hooyaday aabay goor xaaladooda sababtu wax kale ma ahan
ma oga mana xasuusan karo iyo maskaxda qofka bini'aadamka horta maskaxdiisa hal xiriir un bay qaadi kartaa wixii hal marka qalbi uu leeyahay qofka waati muxuu ay sheeg ma jacala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi marka inta badan xiriirkii ayaa horta muxuu ay sheeg dhibaato ka taagan tahay kalsoonida ayaana waxaas oo dhan hooyo aabbo ah haddii labada qofood ay kalsooni isa siiyaan oo ay macnaha ay ka fikiraan mustaqbalkooda iyo aayahooda horta waxaa loo baahan yahay aniga aabbo jecel aan ahay oo wax badan aan jecel soo maray waxaan soo qasi karo waan soo qasay oo maanta nin weyn aan ahay marka la yiraahdo maxaa ay sheeg labada qofood ya nolol wadaagayo inta qof marka labada qof isbarash wax la yiraahdo jiro inta isbaranayaan la isxiiseenayo gabadhii way sheekeynay wiilkii wuu sheekeynaya laakiin jaceylka dhabta goorma bilowda waa marka isbarasho laga gudbo oo muxuu ay sheeg labada qofood intay isa soo wacaan ama isku imaadaan waxay isku sheegaan aysan garanayn wiilkii gabadhii markaas waa marka loo baahan yahay wiilkan waxa uu jecel yahay waxa uu neceb yahay dooqiisa noloshiisa waalidkiisa muxuu ay sheeg familki in la dhaxgalo labadii famil gabadhii wiilkii in la isbarto wixii oo dhan fursad la isku mabasiyaba gabadhii waxay leedahay laakiin wax ku jecel inuu meesha la soo taagay boorinkiisa wiilkiina boorin u dareemaa gabadhiina boorin boorin iyo cawasheel waa marka kaliya loo baahnaa in macnaha ay sheeg noloshoodii ay si anba qaadaan markaas labada boorin ay dareemayaanba in la kala caajiso la kala tago ay noqonaysaa waxa kale marka boorinkaas oo kale waxa lagu xalin karaa labada qofood inay iskaftan bartaan isheeka bartaan oo muxuu ay sheeg intay wada joogaan ay kaftamaan marna boorinki marxaladda jaceylkii noloshii la galo marka xoogaa lagu caajisan in kaftan la galo laakiin se inta badan laba qofood oo isfahamsan way jiraan laakiin muu maleynaa horta jaceylkii hore ee jiri jiray in hadda uu jiro muu maleynayo sababtoo ah kalsoonidii yaa dhamaato luntay labada qofood muxuu cid aaminaysa habeerataa ma jirto labada isguursanaysana macnaha heblaay guurartaa macnaha laba soo bislaato unba isguursataba inta badan oo soo daaleen oo jabaatada marka hadda maxaa leedahay koronto kalsooni darada labada raggii dumarka ka dhaxeysa miya mise waxaa u badan qaybta dumarka ama qaybta ragga caqabadaas maxay xagee ka taagan tahay isdhihi kartaa caqabada horta muxuu ay sheegeen labada dhinac aniga midna ma saarayo oo inta badan aniga gabar gooni eed uma saaro ragna gooni eed uma saaro laakiin waxaan aaminsanahay hadda laba qofood oo walbaba xiriirkooda iyo sababta keentay macnaha waa wax hadda aan ka hadlayno ama waxaa saameeyo kalsooni darro ama waxaa saameeyo xiriiro fara badan oo labada qofood macnaha ay sheeg ama gabadha ay xiriiro badan tahay ama wiilku inuu xiriiro badan yahay ama kalsooni darro inay jirto labadaas arrimood unbaa inta badan saameeyo laakiin kala tag walbana labadaas arrimood u aaneeya inkastoo mararka qaarkood arrimo dhaqaale ay jiraan oo muxuu ay sheeg gabadhii waalidkeeda iyo wiilkii waalidkiisa in macnaha naag dibadda ka imaata ama nin dibadda ka yimid oo kale iyo macnaha labadii qofood oo meel fiican ay sheeko u marayso inay soo dhexgalaan waalidkii waa suurtagal xilliyada qaarkood interestina waa uu jiraa waayahan dambe marka arrimahaas oo macnaha main issueskaas ayaan u aaneynaya mawgii cid gaara aniga eedda ma saarayo ma jirto kalsoonidana waxaa waaye labada dhinac haddii kalsooni ka jirto hor u socod bay lahaanaysaa okay su-aashaada ku weydiiya waxay tahay walaalkay koronto su-aasha labaad su-aalayguna badan yihiin waxaa waaye inaad ka jawaab isku day waa wadaa waryi kale maxaa la sheeg maxaa keenay dhalinta maanta ee social media ku jirto oo furoogooda iyo kala tagaas iyo maxaase waa isdhihi kartaa dhibaatooyinka fikirkaaga ka dhiibo abaay horta marka la yidhaahdo furiinka sida loo jideeyey guurka ayuu furiinkana xal u yahay mararka qaar marka labada qofood furiinka ilaaha xal ka dhigay laakiin furiinka badan kusoodaa horta waxaa sababo waxay tahay ninkii naagtiis qabo ninka ragga horta isaga hoggaan waa qoyskaas qur-aankana wax badan uu noo sheegay الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض marka horta waxaa sababayo gabdhaheenii Soomaaliyeed kheyr Allah siiye oo waayii ugu dambeeyay horumar sameeyay oo ninkii inay ka yara horumaraan isku dayayaan ninkii mas'uuliyadda saarneyd oo asagoo yani isheeg waxyaabo badan xeerinayo macnaha isheeg labadoodii way soo ordayaan marka ma fahamtay ninkaan ordayay gabadhan ordayso waxay soo galayaan social media soo galayaan social media waxa jiro wax la yiraahdo privacy oo labadan qofood u gaara noloshooda arrimahooda gaarka ah ayaga gaar u tahay marka
youtube marka wuxuu u baahan yahay update maalin walba inaad video soo geliso u baahan yahay adiga youtuber aad ani youtuber ah garanayna marka laakiin inaa micnaha noloshaadi gaarka ahayd update ah ka dhigtid horta wax laga qurux badan yahay waaye marka waxay fahmi waayeen waxa gaarka ah iyo waxa bulshada micnaha loo bandhigo taas horta way ka kala qaldantaa Soomaalida private public ay qaltaan ha marka private-kii qofka daawadahaaga ah wax walba oo noloshiina ku saabsan uu la socdaa uu og yahay barashada ma kaaga baahna way dhibaato wax walba og adinka update ka soo dhigayo horta taas waxay fududeysay in qof walba iyo talaabtiisa in la og yahay maanta waxa uu leeyahay heblaay miyaha aaway ninkii ayaga ku maamulaayo mid kale waxa kale jiro dadka daawadayaasha anaga aad ay noo maamulaan Soomaaliyeed maxaa ay sheeg su'aal lagu soo weydiina su'aashaas lagu soo weydiiyo qofkan shakhsi waa adiga ku mashquulin ha isku dayin inaad soo jawaabtid ninkii aaw maalmaan ma arkin qofkan wuxuu ku qasbanaanaa ninkii inay keentay ku qasbanaanaysaa sax oo raadiyo ninkii maxaa ay sheeg la raadiyaa lagu qasbanaanaa youtuber badan oo arkay xitaa lagu kalifay qofkan waa isku nuuraysaan waa isku soo baxaysaan ayaga loo qof israbin oo waxna isla jilaan rabeen waa isku nuuraysaan isku guursan isku nuuraysaan guri isku ma dhaqaayaan marka horta dadka daawadayaashana wayna maamulaan anaga aan youtuber Soomaaliyeed marka waxa kale oo iyana si dheer inta badan furiinkan faraha badan horta arrimaha oo qaaska ahaa oo bulshada la wadaagayo waa ay keentaa waxa kale oo iyana keento waxa jira wax la yiraahdo il bini aadan buuray dumisa dadka daawadayaasha nooc walba isugu jiraan ninaan wali guursanina jiro gabaraan wali guursanina jirto sida adiga u qurux badan tahay gabar walba ay uma qurux badna wiil walba ayna uma qurux badna adiga oo wiil qurux badan iyo gabadhii asaagaaga ahayd oo lamaanahaaga ahayd ilaahay hore wuxuu waxa ku siiyaa ku faanin ayaa waxa soo fariisanaysaan social media waxa leeyihiin aniga inaagtid babydeedu waa isku yara dhagdhagaysan hadda u baahantiin marka qofkaas ma sha Allah haduu dhaho xogaa ina ka badbaadida suurtagal ah ma sha Allah way nagu yartaa inta badan marka qofka ishiisa kugu dhacayso ishi markay ku dhacdo maxay saameynaysaa hadda caruur tahay horta cunuga hadii uu yahay xanuun iyo waxbu ka dhaxlaa hadii laba qofood oo isqaba il ku dhacdana ugu dambeyntii qaabkii ku kala tagi lahaayeen labadoodii isku soo uraayo labadoodii micnaha ishag isnacaayo inay kala tagaan ayaa soo degdegayso marka cuyuunta qayb ay ka tahay maxaa ishag information koodii la wada haayana ayada naftirkooda in furinkooda soo degdegahay qayb ayay ka tahay iyo ayadoo maxaa ay sheeg kalsooni fara badan aysan sanadahan dambe aysan jirin ninkii naagtii isgarab ordaayay waxa loo baahan ninkii naagtii isqabo marka laga tago update-ka YouTube iyo social media ay sameynayaan in labadooda ay macnaha sariirta oo kaliya aan isugu imaanin ay sameystaan waqti u gooniya oo farxad ay siiyaan laga sheekaysto noloshii hore tii dhexe iyo maanta heerka la taagan yahay hadii labada qofood mid mugdi uu jiro oo yaani ishaq uu wax tabanayo in si gooniya waxooda ay u xalistaan intaanan gacan saddexaad ama qof saddexaad uusan meesha imaanin sirta qoyska oo ayana loo baahan yahay inay noqoto wax labada qofood banaanka aan u bixin sirtiyo macnaha aanan qarsooneyn ayada naftirkeeda qayb ay ka qaadataa ayadoo aanan waqti gooniya la wada qaadanin oo ayada naftirkeeda markii la isku dhacaba horeeya laga kala tagay waxa loogu talagalay labadan qof markay isqabtaan inay isxaliyaan mar labaad mar saddexaad markay isxalin waayaan qofka ugu dhow in loo bandhigo ciladii kadib markii la isxalin waayo in waalid loo gudbiyo waalidka muxuu ahaay markuu xalin waayo kadib ayuu furiinka imaadaa laakiin markuu ugu horeysa markaas ku dhacna wararka furano hadana furiinka wax saaran oo agtooda ka noqday dhibaatada jirta intaas waaye inaa waatan loo baahan yahay su'aasha labaad waaye waxaa mastay meeshaan dhalinta maanta dhibaatada qof kala wareysan 3 su'aal weydiyo su'aasha dhaxal ku weydiin waxay tahay maxaa saaway su'aalaha la waxa iga dhigaysaa kuwi oo maaragtay oo abaalmarinta lagu bixinayo qaabka ay diido okay maxaa saaway in wadankeena dhulkeena anaga wadankeena Soomaaliyeed waxa ku batay kufsiga kufsiga marka maxaa ka dhilayd oo dhalinta Soomaaliyeed aan ku dhiirigelin inay iska daayaan oo aad kaga waan lahayd oo wali waxa la kufsanaa waxay yihiin 3 jir 12 jir 11 jir dadkaas maxaa dhilayd fariin maxaa u dir lahayd horta fariintu waxa ka horeysa in xoogaa yar qac ka siino sababaha keenay horta anaga social media saameynoo noo keenay qaasatan website-yada waxyaabaha macnaha oo xumaanta ah la soo geliyo sababtoo waxaan ay sameynayaan
inta badan waxay ka daawadaan maxaa social media qaasatan website-yadaas ay ka daawadaan waxaa kaloo anaga saameyn lagu leh waxa loo yaqaan drugska sababtoo qof maskaxdiisa iyadoo ay joogto suurtagal ma noqonayso in macnaha uu sameeyo waxyaabaha wiil hadda muxuu ay sheeg 3 sano jiro qof damci karo oo nin raga kule inuu jiro mu maleynayo laakiin ama uu xanuunsan yahay ama uu xanuunsan yahay ama daraagis uu isticmaalay labadaas mid ay noqonaysa marka xanuunadaasna waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay qayb ka qaadato dardaarankii haddii la yiraahdana waxa ugu weyn horta waxay tahay in horta waxaan laga hortago aysan soo laalaabanin in muxuu ay sheeg waxaana inta badan keeno waalidiintii oo kala tagay caruurtii horta inta badan saameysa ilaalintii waalidka ubadka loo baahnaa inuu ilaaliyo kadib dhaco marka in bulshada horta ay dadaalaan waxaa kaloo ugu muhiimsan waxay tahay qofka markuu falka geysto in macnaha talaabta ugu habboon diiniyan in macnaha maxkamadda markaas jirto amaba dowladda markaas jirto goobta markaas maamulka ka jiro in macnaha qofkaas ficilka uu sameeyo in macnaha la waafajiyo xukunka uu mudan yahay laakiin anaga qabiil baa la yiraahdaa nafta noo keenay anaga qabiil aan qanaa qofka dambiyo galaa qabiil hebel waa la waa la kuuskuuso waa la qarna maalmo kadib dhibaatada maanta waadi qofkaas walaasha haysta ama hooyas loo geysanayo meeda biri kama aday kugu imaan kartaa marka waxa wanaagsan in laga hortago marka waxa la yiraahdaa gacan gadaal ka baqaysa hay'ad ma geysan karto marka qofka wuxuu ku tashanayaa in la soo deynayo wax buu dilayaa wax buu kufsanayaa wax buu sameeynayaa saameynta inta badan meelahaas nooga imaata in xukunka ay leeyihiin in la marsi ayaana lagu xalin karaa marka dhibaato walba dhacal qabiil waxa loo doomarin oo sida wanaagsan oo diinta ay qabto oo markaas lagu afjari karna lagu dhaqo waa aniga mustalifa janka daawanaysa ku mustalifa waxaa maanta martiya walaalkay macaan koronto wax badan oo youtuber oo xiisaha wararka waxaa la sheeg insha Allah muddooyin badan waa wada shaqeyn doona Duulay kala noqdo intaan ku kulmi doono sida ay maana alla jana firdaws aan noo balnay